kulanti waxaan oo wanaagsan daawada ku soo dhawow qaybta xigta ee sheekada ku saabsan xaaskeyga Jini bay ka ahaatay qaybihii ugu xasaasisanaa uguna xiisaha badnaa ayay maraysaa walow ay 1 iyo 2 aanay joogin sheekada nuxurkeeda iyo macnaha ku jirana waxaan dareemayaa inaad la socotaan qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa markii aan arkay ninkii oo indhihiisa care iyo shar badan ay ka muuqato oo xaggayga u soo socda ayaa waxaan garawaayay qaab aan u dhaqmo waxaana jirkayga oo dhan saaqday argagax iyo cabsidii adduunka waxaana iga yimid dhidid buurbuuran aniga oo yaqiinsaday in ay ii dhamaatay oo la idili doono balse durba waan iska gaaray waxaan isku dayay inaan is adkeeyo isla markaana aan xakameeyo nafsadeyda cabsida ila taaganna aan iska saaro iyo sidoo kale inaan suurto gelin akhrinta afkaarteyda ninkii markii uu ii soo dhawaaday ayuu igu yiri in mari aan guriga u laabanay hadal kale ima uusan dhihine dib ayaan u soo wada laabanay muddadii aan jidka ku soo jirnayna wax hadal ima uusan dhihin wuxuu isaga dhan u ahaa mid fikir ku maqan sidii in uu la sheekeysanayo nafsadiisa balse mararka qaar xaggayga ayuu u soo jaleecayay indha aanan fiicneen ayuuna igu soo fiirinayay waxaan isweydiiyay haddii uu afkaarteyda akhristay iyo haddii kale isla aniga ayaa isku jawaabay maxay tahay su'aashan doqonnimada ah dabcan wuu aqriyay wax walbaana wuu gartay haddii uusan akhrin maxaa sababay inuu dib ugu soo laabto guriga asiga oo dhan uu sidaan u sii careysnaado balse maxay tahay sirta ka dambaysa aamusnaantan hadiiba uu wax walba ogaaday muxuu horay ii dilin waa su'aalaha maankeyga ka guuxaya muddadii aan jidka ku soo jiray markii aan gurigii tagnay ayuu iga dalbaday inaan beerta wada fariisano xoogaana aan sheekaysano isagoo igu yiri haye bal hadal hana isku day inaad wax iga qariso maxaad kala jeedaa hadalkaas ayaan ku celiyay intii aan jidka ku soo jirnay oo dhan waa kuu sabrayay si aad nabadgelyo gurigaadii aad ugu soo laabatid jawi deganaani ay ku jirtana aad dareentid adiga oo qoyskaada ku dhex jira marka waxba ha iga qarin ee haatan soo hadal waxaan isku dayay inaan iska dhigo qof la yaaban habdhaqankiisa iyo su'aalihiisa balse waxa uu igu yiri idhageyso wiilyahow waxaad ka guuleysatay inaad iqiyaanta bilowgii hore balse maadaama aad dhagartaada iyo qiyaanadaada aad sii wadi weysay ilaa dhamaadka haatan waxba qof aan wax ogeyn ha iska dhigin ee ii sheeg sheekada wax walba oo ay tahay waxaad aniga iga taqaano iyo sababta kugu kaliftay arrintan markaas ayaa hadalkii inta aan qaatay waxaan ku iri haddii xaqiiqda aan kuu sheego oo aad ogaatid maxaad igu samaynaysaa xaqiiqda waxaan ogaaday isla markaana aan gartay waqtigii damiirkaada uu ku celiyay ee aad iga naxday haddana waxba kuguma samaynin soo maahan haatan bal wax ii sheeg ayuu hadalkiisii ku celiyay markaas ayaa waxa dhex martay sheekadan haddii aadba xaqiiqda aad ogaatay maxaad iga weydiinaysaa aniga waan u baahanahay inaan sheekada aad ii kala dhigdhigto wax walbaana aad ii sharaxdo hagaag wax walba waan kuu sheegayaa balse adigana waa inaad i rumaysataa adigana ma waxaa tahay jinni iyo insi isku dhex jira oo falaaga ku noqday awoodda jinka kadibna ka soo cararay insaankana dhex degay adiga waxaad u hadlaysaa sida carruurta oo kale anigana waxaan dareemayaa qajilaad waayo doqon adiga oo kale ah ayaa ku guuleystay inuu i qiyaano war miyaadan arag inaan insaan adigoo kale aan ahay hadday sidaasi ay tahay maxay tahay waxa aad ka doontay buurta sideena ku akhrisay afkaarteyda maxayse tahay ujeedka jinka ay kaa leeyihiin iyo wax ay kaa doonayaan markaas ayaa si la yaab leh isaga oo xaalkaygii ka yaaban inta uu ii soo fiiriyay waxa uu igu yiri sidee adiga waxaan oo musiibo ah aad bartanka uga gashay anigu waxaan dareensanaa in ninkaani uu leeyahay awood gaar ahaaneed waayo afkaarteyda ma uusan akhrisan lahayn aniga oo weliba ka daboolay waxaan ogaa inaysan jirin wax aan qasaarayo waqtigaasi waayo Shiiriin marnaba iima jixin doonto maadaama aan qorshaheedii haleeyay markaas ayaan isri amay ku roontaa in aad isku jilcisid ninkan wax walbaana aad u sheegtid markaas kadib waxaan bilaabay inaan sheekadeeda uga sheekeeyo aniga oo min bilow ilaa dhamaad u waday balse waxaan dareemay inaysan sheekada ku soconin kaliyana uu ihtimaam weyn siinayay wixii quseeya Shiiriin markii aan sheekadii u dhameeyay ayaan ku iri adiga Shiiriin miyaad garanaysaa waxa uu iigu jawaabay ma qof aanan aqoonin ayaa jira xasanow waa naag dhagar badan oo qiyaano badan maalin kasta waxay adeegsataa magac cusub iyo sheeko cusub waxayba ahayd inaan mar hore arrintaani ku baraarugo oo aan ogaado in qorshahan qof aan iyada ahayn uusan ka dambeyn markaas ayaan haddana hadal kala weydiiyay oo waxaan iri miyaad garanaysaa Amal wuxuu iigu jawaabay ma garanaya amal qofka ay tahay mana u malaynaya in naagtaasi Shiiriin ay la dhalatay gabar leh astaamaha si wanaagsan
waxaase macquul ah in gabar aad u yar la dhalatay oo iga dambaysay balse arrinka shakiga igeliya waxay tahay in uu jiro qof isku dayi karaya in uu xiro gabar la dhalata Shiriin waa sax oo qawaaniin adag ayaa jira oo lagu ciqaabo dadka basharka xiriirka la sameeya balse heerka suurtagalka ah ma ahan in uu gaaro xabsigii Qeybta nuur waxaad u muuqataa qofka adduunka jinniga xog badan ka hayo waxayna ila tahay in adiga ka tirsan tahay iyaga ee ma iga caawinaysaa badbaadinta amal iyo in aan musiibada aan dhexda kaga jira aan ka soo badbaado rumayso ama ha rumaysan aniga haatan insaan ayaan ahay ma inkiraya inaan waqti hore aan ahaa kana tirsanaa adduunka alkawnayn balse haatan waxaan ahay insaan caadi ah hana i weydiin qaabka ay sidaani ay ku dhacday waayo waa arrin ay adag tahay in aan kuu sharaxo balse waxaan ku barayaa sir badan oo aadan horay u ogeyn qofka alkawnaynka ah kaliya waxaa arki karaya hal qof oo suurtagalna ma ahan inay arkaan hal qof wax ka badan haddii ayba dhacdo daqiiqada ma dhaafayso adigana sida aad ii jeedid waxaan fadhiyaa beertaada oo ehelkaada oo dhan ayaa ii jeeda arrinta gabadha alkawnaynka ay aad guursatay ee amalna waxaan kugula talinayaa inaad arrinkeeda iska ilowdid dhanka Shiriin soo ma ahan iyada waa mushkilad weyn waxayna u muuqataa in aysan ka warhaynin mushkiladda aad adiga ku dhex jirtid ogowna qofkii ay doorato si ay noloshiisa ugu ciyaarto sariiqdeeda sahal ugama badbaado balse waa macquul in aan helno hal wada kale waa haddii aan helno sirta ka dambaysa in ay kuu soo baahato markaas ayaan weydiiyay su'aal ku saabsaneyd muxuu yahay farqiga u dhaxeeya alkawnaynka iyo jinka waxaanu iigu jawaabay waxba maankaada ha ku mashquulin magacyadan waxaan kugula talinayaa haatan kadib in su'aashaada ay noqoto qaabkii aad sariiqdan uga badbaadi lahayd haataanna ina mari oo aan soo eegna sirta ka dambaysa sababta ay Shiriin kuugu baahatay iyo danta ay ka leedahay markii uu sidaasi ugu yiri kadib ayaan hadalkii qaatay oo waxaan ku iri sirta cadowga waa ay caddah waxayna u baahan tahay inaan garab adiga aan ku siiyo iyada inay adiga ay gacanta kuugu dhigto walaasheedna ay u badbaadiso wax shakina kuma jiraan in ay iga aarsan doonto gaar ahaanna kadib marka aan sirtan kuu sheegay hadalkii inta uu qaatay ayaa waxa uu igu yiri Shiriin wax caawin ah adiga kaagama baahna balse waxaa jira arrin weyn oo ay qorsheynayso markii sidaasi ugu yiri ayaa tala kale igu cadaatay anigoo indhaha taagaya ayaan waxaan ku iri adiga waxaad Shiriin uga hadlaysaa sidii in ay tahay mucjiso ay mustaxiil tahay in laga adkaado ama laga taqalluso balse arrinta la yaab kale waxay tahay in markii dhankeeda ay ayadana ay ka hadlayso waxay suuraysaa makhluuq haysta awood ka badan midda jinniga iyo insigaba ay leeyihiin anigana waan idinku wareeray mana aqaana labadeena midka aan rumaysan lahaa maxayse tahay sababta oo midkaanba midka kale sidan oo dhan uu uga cabsanayo ilaah baa og inaad isku kay soo bahaysateen si aad ii qiyaantaan iyo arrimo kalaba inta uu garabkii gacanta iga saaray ayaa wuxuu igu yiri walaal xasanow in aqligaada la xakameeyo Shiriin wax qorshe ah ugama baahna anigana kuma dhihin Shiriin waa mucjiso aan si nabad looga fakan karin balse waxaan ku dhahay qof sahal ah ma ahan anigana waan awoodaa in aan ku caawiyo haddii aad caawinteeda aad doonaysid aniga waxa kaliya aan doonayo waxay tahay in xaaskeyga aan soo ceshado Shiriinna aan isdhaafno gabi ahaanba markii aan hadalkaasi ku iri ayaa waxa uu ii muujiyay dhoolla cadeen u muuqatay inaanu ka helin hadalkayga waxaana weydiiyay su'aal ahayd ma waxa shaki kaaga jira runka sheegidda dareenkayga wuxuu iigu jawaabay waxaad jeclaatay Shiriin oo qalbigaaga haatan ayada ayuu jecel yahay balse waxaad isku dayaysaa inaad naftaada ku qanciso inaadan jeclayn iyada aniga jecel kibirlida Shiriin ah tani waa waxaan dhici kareenin waa sax inaan mararka qaar aragtideeda aan u xiiso balse waxa u sababa inay amal isoo xasuusiso aniga Shiriin ma jecel suurtagalna ma ahan inaan jeclaado aniga bashar ayaan ahay qaladna wuu iga dhici karaa haddii aad adigana bashar ahaan lahayn midaas waad fahmi lahayd balse adiga ma ogi jaceylka aan amal aan u qabo heerka uu ii gaarsiisan yahay walaal xasanow maxay tahay sababta kugu kalifaysa sharaxaadan dheer si aad iigu cadeyso inaad Shiriin jeclayn alxaasil haatan arrintan mowduuceena ma ahan adigana mushkiladan weyn ayaad bartanka kaga jirtaa haddii aad doontidna waxaan ku bari karayaa qaabka aad Shiriin uga badbaadi lahayd balse kuma ballan qaadi karo in arrintaasi sahal ay ku fududahay maxay tahay sababta aad mar walba iiga digaysid Shiriin maxayse tahay sababta aad sidan oo dhan aad uga cabsanaysid
aniga kama cabsanaya iyada taasi beddelkeedana waxaan diyaar aan u ahay inaan la kulmo oo aan is aragno inkastoo ila tahay inaysan arrintaasi aqbali doonin haatanna waan kaasii tagayaa waa inoo kulan dambe markii uu hadalkaasi igu yiri nuur gabi ahaanba waa uu iga tagay anigana halkaas ayaan ku sii wareersanaa waayo isaga wuxuu aad u shabahaa insaanka mana shabaho jinniga balse ma uusan diidin mana beeninin inuu jinniga uu ka tirsan yahay iyadoo sidaas ay tahay haddana wuxuu u hadlayaa sidii inuu yahay qof iyaga ka tirsan markii aan weydiiyay amal wuxuu ii sheegay inuusan aqoon u lahayn suurtagalna ay tahay inay ka mid tahay jiilka cusub ee iyada la dhashay taasina waxay ka dhigan tahay in isaga uu ka mid yahay jiilkii hore kullay qofku doono iyo wuxuu doonaba ha ahaadee marba haddii cinwaan loogu hagaago uu leeyahay ilbiriqsina miriq uusan iga dhehaynin waa arrin iska wanaagsan sidoo kale waxaan isweydiiyay sirta qarsoon iyo xiriirka nuur iyo shiriin ka dhaxeeya waxaa kaloo maankayga ku soo dhacaya sida ay shiriin ay ii geli doonto marba haddii qorshaheedii aan fashiliyey waxaana aan isiri qaabka adduunka ugu xanuunka badan ayay kaaga aarsan doontaa balse waxaan isku qanciyo nolol iyo geeri gacanta alla ayay ku jirtaa wixii ka dhacaya ha ka dhacaan haddii aad noqon lahayd fulay oo aad kun jeer dhiman lahayd ee adiga is adkay oo hal mar geeriyo halkaa ha inoo joogto qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan xaaskayga jinni bay ka ahaatay qaybta xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo